gabaygan waxaa la yidhahaa qormadeenna waa aniga oo ah Shamsaan Yuusuf Cali sidan uu ku bilaabmaya Soomaalida waxaa qarribay kaa qabiilsaniye wax soqoonsimaad mudan raggii qoray Israa'iile diintan quweynaynay dad baaquud ku doorsaday qaadirow ilaahow adaan qiilsan kaa sugiye qumbuladuu jabaan qaraxii qoob la ragi waayey qacdii way ina haysataa oo taanaa qiraye qalalaasa meel uu ka jiro iyo qayle iyo oohin qormadeenna weeyaan Soomaaliye haddaad ka qiiroon qayrkii ka hadha waa ninkii qale walaalkiise qabyaalad iyo jeeroo la naco qurunkii ay reebtay inaan qaran ahaana waa cirkuu qaawanoo da'aye jeeraan qasti yeelanno horteed qowlsan ku heshiinno qorraxdii dhalataba waan kala qahaynaaye qaraabakiil baan hadhayn iyo qadab xumaantiiye inaan kala qarqoornay oon qayb inaga joogin qalax bay ku nool yihiin oo dad baaqadoodu uu dilaye gumciya rasaasiya dadkuu qaraxu googooyey ee qabri aanan gelin ee adduun qurunka uun yaalla qalalaasa meel uu ka jiro iyo qayle iyo oohin qormadeenna weeyaan Soomaaliye haddaad ka qiiroon qadarin iyo qiimahaan lahayn adduun sharaftii aan qoonnay qurayshtii hablahaan lahayn qurbaha kuma qabaameene sidii qaar la iibsaday ikhtiyaarka lagama qaadeene qoobka lagama xidheen sidii qaalmahoo kale ruuxii qiimahood yaqaan maba qasaarsheene waa qaxooti lama dhaheen dadkii qaaliga ahaaye quud aanan jirin iyo quuddarro lama qalloocdeene qalad lagu saxaa keene qaraxaase qumanihii ibliis baa haddana qoorta loo suraye qoys reer hebel baa lagu jiraa qoys reer hebel iyo qabyaalad baa lagu jiraa sida qiyaaseede qalalaasa meel uu ka jiro iyo qayle iyo oohin qormadeenna weeyaan Soomaaliye haddaad ka qiiroon gabaygan waxaan tiriyey markii uu Siyaad Barre xukunka ka tegey ee Soomaalidu isdishay ee isnacday ee isdagaashay ee la kala qaxay waqtigaasaan tiriyey laakiin maanta ayaan nasiib u helay bal inaan YouTube-ka idinka idiin soo geliyo dadkii waqtigaa taariikhda ogaa bal xusuusta iyo qiimaha iyo siday bal la tahay bal subscribe-ka xaggeeda share iyo commentiga waa idinka Soomaaliya idinka idiin daayay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.